إمام مالك بن أنس أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عمار بن عمر بن حارث الأصحابي wuxuu ka soo jeedaa imaamku asal ahaan ximyar oo ah qabiil Yemen dega. Hooyadiisna waxaa la yiraahdaa Caaliya bintu Shariik bin Cabdiraxmaan al-Asadiya. Imaamku wuxuu dhashay sanadkii 93 Hijriga, wuxuuna ku dhashay Madiina al-Munawwara oo ah magaaladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam u hijrooday, oo ayna ku kulmeen jiilkii ugu horeeyay ee saxaabada iyo ardaydoodii. Allah ka raali noqday wuxuu ku barbaaray deegaan cilmiyeed. Aabihii iyo hooyadii iyo walaalkiisna waxay ahaayeen dad cilmiga xadiidka aad u raacraaca, taasna raad bay u yeelatay imaamku. Al-Juhuud al-Baxsiya, dadaalkiisii cilmi raadinta. Imaamku wuxuu bilaabay cilmiga isagoo aad u yar, sida caadadu u ahayd culimmadii xifdisay Qur'aanka. Imaamku wuxuu bilaabay inuu la fariisto culimmadii waqtigiisii joogtay. Macallimiintiisii kuwa ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa Ibnu Hurmuz, wuxuuna ka baranayay cilmiga muddo 7 sano, cid kalena uma tegi jirin xilligaa. Isagoo ka waramaya imaamku wuxuu yidhi, waxaan u imaan jiray Ibnu Hurmuz subaxii kamana tegi jirin ilaa habeenkii. Kadib wuxuu u wareeyay Naafic mawlaa Ibnu Cumar ilaa uu caan noqday riwaayaadkiisii warintiisa. Wuxuu kaloo ka qaatay imaamku cilmiga Ibnu Shihaab az-Zuhaari iyo culimo kaloo badan, wuxuuna imaamku ku bixiyay cilmiga dadaal iyo waqti badan. Magaalada Madiina casrigiisii ma jirin cid lala simo xagga iyo cilmiga xadiidka iyo xifdigaba. Isagoo ka waramaya naftiisa, imaamku wuxuu yidhi, waxaan u imaan jiray Naafic mawlaa Ibnu Cumar maalin badhkeed iyadoo geedna iga celinaynin qoraxda. Wuxuu leeyahay imaamku, waxaan iska dhigi jiray sidii aanan arkaynin, kadibna waan salaami jiray. Markaas baan weydiin jiray, waxaan odhan jiray, muxuu ka yidhi Ibnu Cumar sidaa iyo sidaa? Kadibna wuu ii jawaabi jiray, waana xifdin jiray wuxuu ii sheego dhan. Mar kale isagoo ka waramaya xifdigiisa wuxuu yidhi, waxaan u imaan jiray Ibnu Shihaab az-Zuhaari, markaasuu ii weydiiyey waxa aan doonayo. Markaasaan dhahay, waxaan rabaa inaan xadiid ii sheegto. Kadib wuxuu igu yidhi, la soo bax lawxaaga. Waan la soo baxay, wuxuu ii sheegay 40 xadiis. Markaasaan dhahay, dad xafido intaan xadiis waxaad ka mid tahay xufaada. Markaasaan ku dhahay, waan xifdiyey. Markaasuu iga qaaday lawxii gacanta ku jiray ayuu igu yidhi, ka soo bax. Markaan soo sheegay intii xadiis oo ii sheegay, wuxuu yidhi, kac, waxaad tahay weelasha cilmiga. Imaamku wuxuu ku caanbaxay xifdi sarayn. Waxaa la sheegayaa inuu ka dhageysan jiray xadiiska culim badan, mid walbana wuxuu ka maqli jiray 50 ama 100 xadiis, korna ka xifdin jiray isagoo aan xadiisna ku qaldin xadiiska kale. culimadiisii qaar Imaam Malik, Naafic mawlaa Ibnu Cumar, Ibnu Hurmuz, Ibnu Shihaab az-Zuhaari, Abu Zinaad, Yaxya ibnu Saciid al-Ansaari, Imaam Jacfar as-Saadiq, Cabdullah ibnu Diinaar, Caaisha bintu Sacad bin Abi Waqaas iyo culimo kaloo fara badan. Imaam Malik dad aad u fara weyn ayaa ka wariyay axaadiis, dad aad u badan aan la soo koobi karin ayaa wax ka wariyay. Khatiib al-Baghdaad wuxuu ka alifay kitaab uu ku qoray dadkii Imaam Malik ka wariyay axaadiista, wuxuuna ku sheegay qiyaastii ilaa 993 qof. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Imaam Shaafici, Wakiic ibnu Jarraax, Sufyaan ibnu Cuyayna, Sufyaan Thawri, Shucba ibnu Xajaaj, Cabdullah ibnu Mubaarak al-Awsaaci, Cabdiraxmaan ibnu Mahdi, Layth ibnu Sacad. Sidoo kale sheekhiisii Zuhayr ayaa isagana ka wariyay axaadiis. Nin ayaa maalin weydiiyey imaamka aayadda Qur'aanka ah, Ar-Raxmaanu cala al-carshi istawaa, wuxuuna yidhi, sidee ayuu Ilaahay carshiga ugu istawooday, yacni ugu sugnaaday? Imaamku xoogaa ayuu aamusay, kadibna wuxuu yidhi, al-istawaa kelimadaasi waa la yaqaanaa waxay tahay. Sidee ayuu Ilaahay ugu sugnaaday carshigiisna lama oga. In la isweydiino waa bidco, in la rumeeyana waa waajib. Sidaa uu kusoo koobay hadalkii dhan imaamka. Kutubta uu qoray imaamku qaar ka mid ah waxa ugu caansanaa kutubtiisa al-Mu'ta. Imaam Shaafici wuxuu yidhi isagoo ka waramaya kitaabkan, ma jiro kitaab ka saxsan kitaabka Qur'aanka. Hadalkaasna wuxuu yidhi intuusan soo shaac bixin kitaabka Saxiixul Bukhaari. waxaa kaloo ka mid ah kutubta kuwa uu qoray الرد على القدرية، رسالة في القدر، كتاب النجوم والحساب، مدار الزمن، رسالة في الأقضية، وتفسير غريب القرآن. wuxuu aad caan ugu ahaa imaamku ku dhignaanta sunnada iyo wadada saxaabada, wuxuuna aad u necbaa imaamku bidcada iyo waxyaabaha diinta lagu soo daro. imaam shaadibi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa al-i'tisaam
inuu imaam Maalik yidhi, qofkii islaamka ku soo dara waxaan ka mid ahayn oo bidco ah, bidcadaasi oo u arko wanaag, waa qof sheegtay in Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu khiyaanay risaaladii uu Ilaahay u soo dhiibay, sababtoo ah Ilaahay aayadiisii wuxuu leeyahay: alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. Aayaddan waa aayaddii ugu dambeysay ee soo degta qur-aanka. Wuxuu Ilaahay leeyahay, alyawma maanta akmaltu idin kaamil yeelay lakum idinka diinakum diintiina, maanta ayaa idin kaamil yeelay, wa atmamtu waan taam yeelay oo waan dhammaystiray calaykum dushiina nicmatii nimcadayda waan idin taam yeelay oo waan idinku dhammaystiray, wa radiitu lakum waxaan idinka raali noqday al-islaama islaamka diinan diin ahaan islaamka ayaa raali idinkaga noqday. Wuxuu geeriyooday imaamku bishii Rabiicul Awwal sanadkii 179 Hijriya, waxaana lagu aasay Madiina qubuuraha Baqiic, kadib markii uu ku soo qaatay noloshiisa intii badnayd cilmi barasho, camdad barid, sidoo kale juhdi iyo dadaal iyo alla ka cabsi. Alxaafid As-Suyuudi wuxuu yidhi, wuxuu xanuunsaday imaamku, wuxuuna xanuunsanaa ilaa 22 cisho, wuxuuna dhintay maalin Axadda bisha Rabiicul Awwalna tahay 10 ama 14. Xilligaasna waxaa khilaafada hayay Haaruun Rashiid, waxaana ku tukaday dad aad u badan. Allah u naxariistee Imaam Maalik naxariis waasic ah, siduu diinta Ilaahay ugu adeegay iyo sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu gargaaray. Ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu abaalgudo jannatul firdowsa, annagana Ilaahay hanaga dhigo kuwii ka faa'iidaystay cilmigiisa. Amiin. Muuqaalkiina maanta meesha ayuu ka geeyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.